markaas Umi ayaa tiri waxaan u socdaa inaan Yuu la hadlo, hadda waxay u baahan tahay taageeradayda. Ina ayaa iyaduna tiri adiguna waa inaad Seiki la hadashaa, miskiinka aad buu u murugaysan yahay. Inkastoo Maki iyo Seiki aysan saaxiibo dhow ahayn, haddana maadaama isku fasal ahaayeen, Maki ayaa u tagay. Maki wuxuu ku yiri waxaan u malaynayaa inaad ku degdegtay qarashada jacaylka, markii hore saaxiib ayaad la noqon lahayd, dabadeedna waad u sheegi lahayd dareenkaaga. Seiki ayaa ku jawaabay waqti badan ma haysan, laakiin waad saxan tahay, waan ku degdegay. Haddaba ii sheeg maxay dadka iskuulka ka sheegayaan arrintayda? Maki ayaa yiri anigu arrintaas badan kama lihi, dadka iskuulka jooga maalintoo dhan waxaan macno lahayn ayay ka hadlaan, mararka qaar xitaa ma fahmo waxay sheegayaan, sababtoo hadalladoodu waa kuwo aan qiimo lahayn, maskaxdayduna ma rabto inay ku mashquusho. Seiki ayaa qoslay isagoo leh markaad fasalka dhexdiisa joogtid aad baad u aamusan tahay, ma aanan ogeyn inaad sidaas u kaftan badan tahay. Kadib Maki ayaa weydiiyey hadda uu Yuu ku diiday maxaad samaynaysaa? Seiki wuxuu ku jawaabay waxaan isku dayi doonaa inaan ka gudbo, waxaa laga yaabaa inaan mustaqbalka qofka la jeclaado. Maki wuu ogaa in arrintaas aysan sidaas u fududayn, markaas Seiki ayaa yiri dhanka jacaylka adigu qof nasiib badan baa tahay, adigii Umi ma is shukaansataan? Maki ayaa yaabay yaa sidaas kuu sheegay? Haa waan is jecelnahay, laakiin weli maanan bilaabin shukaansi ee xantaas faafinaya. Seiki ayaa qoslay isagoo leh qof walba wuu arki karaa. Tan iyo markay dhammaatay xafladii iskuulka, Umi waxay bilowday inay nafteeda si ka badan sidii hore u daryeesho. Waxay ka farxad badan tahay sidii hore, mar walbana way dhoola cadaynaysaa, markay kula joogtana si fudud ayay u xishootaa, xitaa qof indhoola ayaa garan kara inaad labadiinu is jeceshihiin. Maki ayaa yiri haa waan is jecelnahay, xitaa iyadaa i qiratay jacaylkeeda, laakiin weli jawaabka ma aanan bixin, sababtoo ah waxaan dareemayaa inaanan u qalmin. Ilaa noqdo qof u qalma, anigu ma qiran doono jacaylkayga. Laakiin Seiki ayaa ku yiri waxaa laga yaabaa inaanan xaq u lahayn inaan talo jacayl bixiyo, maadaama anigaba la i diiday. Laakiin si fiican ii dhegayso, waa inaadan waqti badan lumin. Umi waa gabar qurux badan, wiilal badanna way jecel yihiin, marka ha dibdhigin arrintan, haddii kale qof kale ayaa kaa dulqaadi doono. Talo ahaan ayaan kuugu sheegayaa, anigoo kuu ah walaal. Maki ayaa yaabay, wuxuuna weydiiyey maxaad uga jeedaa walaal ahaan? Wuu la yaabay sababtoo ah Maki si dhib leh ayuu saaxiibo u samaystaa, haddana wiilkan ayaa isaga ugu yeeraya walaal. Seiki ayaa yiri maxaad ula yaabtay? Aad ayaan ugu riyaaqay inaan kula hadlo, waxaadna i siisay dareen walaalnimo. Haddii aadan jeclayn magacaas waan joojin karaa. Maki ayaa ku jawaabay maya, sidaas uma aanan jeedin, qofna hore sidan iilama hadlin, dad aad u yar ayaan la sheekaystaa, waana la yaabay sababtoo ah markaad iga codsatay caawimo waan ku dayday, haddana adigu waxaad diyaar u tahay inaad i caawiso. Seiki ayaa qoslay waxaad aad u badisaa fikirka, aniga waxba kama xumaanin markii aad i diiday. Markaas Maki ayaa yiri haddii ay sidaas tahay saaxiibo ma noqon karnaa. Seiki wax dhib ah kuma qabin, sidaa darteed waxay noqdeen saaxiibo. Maki xitaa wuxuu bilaabay inuu magaciisa koowaad ugu yeero Nozomu. Ugu dambayn Maki wuxuu helay saaxiib kale. Markii dugsigu dhammaaday, Umi ayaa timid guriga Maki, wuxuu diyaariyey qaxwo, wuxuuna u sheegay inuu maanta saaxiib cusub yeeshay. Umi ayaa la yaabtay labadiinaba aad baad u kala duwan tihiin, adigu aad baad u aamusan tahay, halka Seiki uu yahay ciyaaryahan baseball-ka dheela. Xitaa uma aanan malayn inaad saaxiibo noqon doontaan, aad baad u kala duwan tihiin runtii. Maki ayaa yiri dadku dibadda ay ku kala duwan yihiin, laakiin markaad la sheekaysato ayaad ogaanaysaa qofka dhabta ah. Arrintaasi waa run, sababtoo ah markii hore Umi iyo Maki iyaguna aad bay u kala duwanaayeen, laakiin markii dambe waxay ogaadeen inay isku hiwaayado yihiin. Umi ayaa tiri runtii waa wax yaab leh, maanta Yuu ayaa diiday wiilkaas, haddana isaga ayaa noqday saaxiibkaaga, laakiin waa wax fiican inaad hadda saaxiibo badan yeelanayso. Markii dambe hadallada Seiki ayaa maskaxda Maki ku soo noqnoqday, ha ka daahin inaad u sheegto dareenkaaga. Sidaa darteed Maki ayaa Umi ka codsaday maxay kula tahay haddii aan Sabtida soo socota wada tagno filim, ayuu yiri. Wuxuu sii raaciyey caadin Jimcaha oo kaliya ayaan kulannaa, Sabtidana qof walba gurigiisa ayuu joogaa, haddaba ka waran haddii aan Sabtidana waqti wada qaadano? Umi ayaa ku jawaabtay waan aqbalay, laakiin hal shardi ayaa jira, Jimcaha waa inaad ila aadaa meeshaan tagi doono dugsiga kadib. Maki ayaa yiri wax dhib ah kuma qabo, laakiin xagee ayaan aadaynaa? Umi ayaa tiri waxaan aadaynaa dukaamaysi, waad ogtahay qaabkaaga labisku uu liito, markii hore xitaa dhar madow oo keli aad soo xiratay. Markaas ay u baxeen dukaamaysi, dabcan Yuuna way la socotay, sababtoo ah marnaba si fudud uguma ogolaan jirin
inay labadoodu keli ahaadaan oo waqti wada qaataan. Inta ay dadka badan dhex marayeen, Yu ayaa qof ku dhacay, waxayna ku sigatay inay dhacdo, laakiin Maki ayaa qabtay. Labadoodii aad bay isugu soo dhawaadeen. Yu iyadoo gacantiisa haysa ayay tiri, gacmahaagu aad bay u adag yihiin, runtii waad xoog badan tahay. Mana sii daynayn gacantiisa. Markii Umi aragtay, Hinaase ayaa qabtay, waxay ku tiri, labadiinu ma yara kala fogaan kartaan. Markaas ay si degdeg ah u kala dhaqaaqeen. Yuna way raaligelisay, waan ka xumahay, waxaan ku mashquulsanaa fikradahayga ayay tiri. Kadibna waxay sii wataan dukaamaysigii, laakiin Umi weli wejiga ay qarsanaysay iyadoo xanaaqsan. Inkastoo iyada iyo Maki aysan si rasmi ah isu shukaansanayn, haddana way jeclayd, mana aysan jeclayn inay aragto isagoo gabdho kale u dhow. Maki wuu fahmay arrintaas, markaas ayuu isku dayay inuu gacanta qabto Umi, isagoo marmarsiinyo ka dhigaya, dadku way badan yihiin, waxaa laga yaabaa inaad iga lunto. Ka waran haddii aan gacmaha isqabsano? Umi way ogolaatay, isla markiina wejigeedu casaan ayuu noqday xishood dartii. Yu oo waxaas oo dhan daawanaysay ayaa shakigeedu sii kordhay, labadan wax baa ka dhexeeya. Kadib waxay sii wateen dukaamaysigii. Makina weligiis uma uusan malaynayn in dukaamaysiga lala aado gabdhaha uu noqon karo wax aad u xiiso badan. Dukaamaysigaasi aad buu u daaliyey Maki, tamartiisii oo dhan way dhammaatay. Markaas ayuu musqusha galay, isagoo halkaas jooga ayuu fariin ka helay Umi. Waxay u sheegtay inay bannaanka ku sugayso, isla markaana ay xiratay dhar aad u qurux badan oo ay rabto inay tusiso. Dharkaasi wuxuu ahaa kii ay u diyaarsatay kulanka gaarka ah ee iyada iyo Maki ay Sabtida wada yeelan lahaayeen. Markii Maki musqusha ka soo baxay, wuxuu si lama filaan ah ugu dhacay nin kale. Wuu ka raaligeliyey, wuxuuna bilaabay inuu ka caawiyo qaadista alaabtii ka dhacday. Markaas ayuu ninkii yidhi, bal eeg kan, muddo dheer kadib ayaan is aragnay Maki. Maki markuu kor u eegay, wuxuu arkay in ninkaasi aanu ahayn qof kale, balse uu yahay aabihii. Halkan ayay ku dhammaanaysaa qaybta 12aad. Asxaabta sharafta badan, like inoo saara muuqaalka. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsantihiin daawashadiina.